Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo mowduuc ku saabsan sida ay muslimiintu u faafiyaan aqoonta diin iyo maadiba. Insha Allah muuqaalkan waxaan ku baran doonaa sida ay ugu guuleysteen iyo isku xirnaantooda. Daawasho wacan. Magacayga waa Shamhaad Axmed, channelkaad naga daawanaysaan waa Shamhaad Xaaji. Fadlan waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalkan like saarto, la wadaagto asxaabtaada iyo subscribe noo saarto si aan u soo badino muuqaalo caynkan ah. Anigana waxay tahay dhiirigelin si aan idinla wadaago mowduucyo caynkan ah. Xilliyadii hore goobaha waxbarashada ee muslimiinta uma kala socneen diin iyo maadi. Hal goob oo masjidka ah ayaa lagu wada baran jiray diinta iyo aqoonta maadiga ah. Halkaas ayuu kasoo bixi jiray aqoonyahan muslim ah oo ka dhisan dhan walba, diintiisa, dhaqankiisa iyo aqoontiisana iskama hor imaanaynin. Taariikhyahanka reer Denmark ee lagu magacaabo Johannes Pedersen, isaga oo ka sheekeynaya habkii ay muslimiintu wax u baran jireen, wuxuu leeyahay waxbarashada iyo diintu waxay ahaayeen laba shay oo uu ka dhaxeeyo isku xirnaansho adag. Qofka wax baranayana wuxuu ahaa qof qanacsan, ku raaxaysanayo wax uu baranayo, weliba dadka kale ku dhiirigeliya inay wax bartaan. Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam wuxuu masjidka u ahaa goob cibaado iyo waxbarasho. Markuu masjidka dhisaba wuxuu ku bilaabi jiray waxbarid. Wuxuu masjidka ka diri jiray aqoonyahano qabaa'ilka soo bara Qur'aanka iyo diinta qaybaheeda kala duwan. Sidaas ayay ku faaftay aqoonta diiniga ah. Meel walba ayaa la gaarsiiyay waxbarashada diinta iyo midda maadiga ah. Heerka ay gaartay faafinta aqoonta islaamka ah iyo inuu qof walba u kaba gashaday faafinteeda waxaad ka garan kartaa Ibn Xuqal oo ahaa dhulmareen iyo ganacsado muslim ah. Wuxuu sheegay in Palermo oo ah jasiirad ku taala Talyaaniga oo ay muslimiintu ka talin jirtay uu ku soo arkay 300 oo macallin oo diyaar u ah in ay dadka wax baraan. Xilligii Nabiga calayhi salaatu wasalaam magaalada Madiina waxaa ku yaalay 9 masjid oo waxna lagu barto laguna cibaadeysto. Madaarisadii ugu horeysay waxaa laga furay sanadkii 622 miilaadiga. Kadibna waxaa si xawli ah u faafay furitaanka madaarista. Qarnigii 8aad magaalada Qurba waxaa ku yaalay 100 madaaris. Aakhirkii qarnigii 9aad masaajid walba waxaa ka dhex furnaa dugsi hoose oo wax lagu baro ardayda isugu jirta wiilal iyo gabdho. Inta badan da'da 6 jirka ah ayaa caruurta lagu geyn jiray goobaha waxbarashada. Waxbarashaduna bilaash ayay ahayd ama qiimo aad u jaban ayaa wax lagu baran jiray si loo wada helo waxbarashada. Waxaa la bari jiray ardayda qoritaanka magacyada Ilaahay ee 99 ah, suuradaha gaagaaban iyo guud ahaan Qur'aanka. Waxaa intaas dheeraa xisaabta oo ardayda la bari jiray. Bilowgii qarnigii 10aad madrasada ama goobaha waxbarashada waxaa bilaabatay in loo aado halka uu macallinku degan yahay, taas oo ka dhigan in goobaha waxbarashada loo horumariyay si tartiib ah. Sanadkii 1666 miilaadiga ayuu wasiir ka tirsanaa dowladii Salaajiqada oo la oran jiray Nidaamu al-Mulki bilaabay goobo waxbarasho oo asaga loogu magac daray al-Madaaris al-Nidaamiyya. Wuxuu ahaa mashruuc waxbarasho oo gaar loo leeyahay oo leh dhismayaal u gaar ah waxbarashada, laakiin si guud madaaristu waxay soo bilowdeen bilowgii Islaamka. Barayaashu waxay qaadan jireen bilgoosad. Markii dugsiyadu horumareen waxaa loo qaybiyay 4 qaybood iyadoo loo eegayo maadooyinka la barayo iyo heerka waxbarasho. Qaybta koowaad dugsiga caadiga ah, dugsiga Qur'aanka, dugsiga axaadiista iyo dugsiyada caafimaadka. Dugsiyada caadiga ah waxaa lagu dhigan jiray maadooyin guud oo u dhigma dugsiga hoose. Waxa ayna ardaydu ku qaadan jireen shahaado bilow ah oo ay ku galaan dugsiga sare. Dugsiyada noocan ah ayaa aad u faafay oo meel walba laga furay. Dugsiyada Qur'aanka waxay ahaayeen madaaris u khaas ah ardayda Carabiga sida wanaagsan u garanaysa oo loo tababari jiray imaamnimo iyo mu'addinnimo. Akhrinta Qur'aanka iyo qiraa'adka aayad ayaa lagu bari jiray. Dugsiyada axaadiista waxaa lagu bari jiray cilmiga xadiiska iyo fiqiga. Ardayda dugsiyadan ka qalin jabiso waxaa la siin jiray shahaadooyin u dhigma heer jaamacad. Qaybta afraad dugsiyada caafimaadka. Iskuulkii caafimaad ee ugu horeeyay waxaa laga aasaasay Dimashq 1231 ka hor. Ardayda caafimaadku waxay wax ku baran jireen isbitaalada. Iskuulada caafimaadka aad uma faafin
ilaa laga soo gaaray qarnigii 16aad xilligii uu talada hayay suldaankii Cusmaaniyiinta ee Suleymaan al-Qaanuuni. qarnigii 15aad Cusmaaniyiintu waxay dardargeliyeen waxbarashada, waxay magaalooyinka ka fureen dugsiyo sida kuwa ay ka dhiseen magaalooyinka Bursa iyo Edirne ee Turkiga. waxay ugu yeereen nidaamkooda waxbarasho ama dugsiyada kulliyad. nidaamkooda waxbarasho wuxuu la mid ahaa nidaamyada ama qaababka wax loogu barto jaamacadaha. dhismaha dugsiyada wuxuu ka koobnaan jiray masaajid, isbitaal, dugsi, maqaayad cunto iyo hool cuntada lagu cuno. waxbarashadana waxay ahayd mid ay heli karaan dadweynaha aad u fara badan, waxayna dugsiyada bixin jireen cunto lacag la'aan ah, daryeel caafimaad iyo mararka qaar guryo ay ku hoydaan ardaydu. kulliyadda Faatix Kulliya oo Istanbul ku taalay waxay ahayd dalad weyn oo ay hoos tagaan 16 dugsi oo lagu barto diinta iyo culuumta qaybaheeda kala duwan. fadlan waxaan kaa codsanayaa in aad muuqaalkan like saarto, la wadaagto asxaabtaada iyo subscribe noo saarto si aan u soo badino muuqaalo caynkan ah. anigana waxay tahay dhiirigelin si aan idin la wadaago mowduucyo caynkan ah.